وسائل warfaafinta Soomaaliland Axmed Cabdi Xaabs iyo taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Maxamed Muuse Abees oo shir tiraadooda jira caawa ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta magaalada Hargeysa ayaa waxay ugu baaqeen maamulka Puntland in ay si degdeg ah u soo daayaan mas'uuliyiin iyo gaadiid laga leeyahay Soomaaliland oo ay saaka jidkooyo ku qabsadeen magaalada Taleexa wasiirka warfaafinta Axmed Cabdi Xaabs ayaa warbaahinta u sheegay in xildhibaan Salmaan Yuusuf Cali Koole iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo jeeda gobolkaasi Sool ay booqasho ku tageen magaalada Taleex ee ay deegaan ahaan ka soo jeedaan beelahdeen si halkaasi hawlo maamul ay uga soo furiyaan waxa intaas uu ku daray in xildhibaanka iyo mas'uuliyiinta la socotay heeratay wax dagaal ah aan u socon balse weer cad lagu soo qaaday isla markaasina Puntland ay jibisay beelahdeen amnigii labada dhinac ka dhaxeeyay siyaasi awgeed aan Soomaaliland marnaba faraha ka laaban doonin arrinta ee ay jawaab cad oo degdeg ah ka bixin doonto haddii si dhaqso ah loogu qaadi waayo beelahdeen iyagoo maamulka Puntland ugu baaqay in ay ka mas'uuliyiin wixii dhibaato ah ee halkaasi ka dhaca xabsade oo arrintaasi ka hadlaya waxa weli jidkooda loo sameeyey jidkaa loo sii galay waa hore waxay in badan joogaan uu sheegay waa tegaya dad ka shaqaysanayay magaaladana waa joogaan oo iyaguna saacadda uu baxayo sii tilmaamay sidii loogu sii geli lahaa jidkooyo waa loo sii galay marka muxuu ahaa accident baa dhacay dad baa dhintay dadna waa dhaawac dadkaa dhintay iyo dadkaa dhaawacii dad rugsita ma ahayn dad muxuu ahaa colaad socdana ma ahayn waxay doonayeen inay magaaladoodii Taleex gaadhaan oo heladoodii ay u tagaan waxay leedahay reer Puntland ka noqda dadkaana soo daaya wixii dhacayna qaata dawladda madaxweynaha arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa sidoo ugu baaqay Puntland in haddii ay degdeg arrinta wax uga qaban wado ay waqtigeeda la arki doono horta wax dagaal ah oo la iskaga horyeeyay ragga waaweyn ee mas'uuliyiinta ah ee madaxda ah waxa uu sheegay sharaftoodii iyo karaamadoodii hadal aan saliyadaa toonad ku ahayn kaga jawaabay in ay isweeraray oo dagaal ka dhacay mid waxaan sheegay wax dagaal oo dhacay inaan jirin waxa weeyaan ragga xagga ka yimid iyo ragga xagga ka tagay rag isku qoys way ahaayeen oo waqti loo kala gudbinayay ambush baan loo galay markii la ogaaday xildhibaanku inuu meesha marayo waxaanu leenahay waa maamulka Puntland u sheegaynaa cid ka dayacbaday ma jirto madax meel maraysa oo marta oo gobolada marta iyaga ugu dayacbadan waxaan u sheegaynaa madaxda la hay'adda degdeg loo keeni waayo talaabada iyo waajibaadka wixii naga aadan baan ka qaaday waana cidna ugu joojinay inay degahoodan ku maqlaan aqligoodana u sheegaan oo degdeg u soo celiyaan baan doonina gaadiidkayagii iyo dadkayagii iyo dhaawacayagiiba inay si nabadgelyo ku keenaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Axmed Cabdi Xaabs dhinaca kalena waxa uu ka warramay muddadii booqashada ku joogay gobolkaasi sida magaalada Laascaanood uu sheegay in hawlo badan oo amniga ay ka qabteen isla markaasina maanta magaaladu ay gebi ahaanba ka duwan tahay xagga amniga sidii ay hore u ahaan jirtay